munaasabadan oo lagu dabaaldegay sanad guuridii 53aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka badda iyo ilaalinta xeebaha Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho cutubyo ka tirsan ciidanka badda ee xoogga dalka ayaa goobta waxa ay ku soo bandhigeen dhoorotus ciidan oo ku aadan munaasabada maanta iyagoo adeegsanaya doomo waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka difaaca dalka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Admiral Faarax Umar Faarax Qare gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka badda Admiral Madi Sheekh Nuur Ufuro ayaa si wada jir ah ugu sheekeeyay marxaladii kala duwan ee soo mareen ciidanka badda muddadii ay jireen iyo sidii loo aasaasay 25 markabaan qabnay oo qaarkood tawaariikhda adduunka ugu dambeeyay ay wataan waxay wataan torbeedo madaafiic noocyo kasta 8 batalyanoo kumaandooska badda ka wareegaas 53 sano ciidanka badda wuxuu ahaa ciidamada ugu xoogga badan ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku jireen waxay difaaci jireen xeebta dhulkeedu yahay 3333 waxay lahaayeen barooyin waxay lahaayeen saldhigyo waxay lahaayeen dugsiyo tababar waxay lahaayeen qalab oo maraakib dagaal diyaarad marka insha Allah waxaas waxay naga raaceen burburkii waddanka ka dhacay dib mar dib loo aasaasay taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareegaas Cabdulle Jaamac Warsame Gorod ayaa habaliye kadib munaasabada waxa uu ka sheegay in taliska ciidanka xoogga dalka ay ka go'an tahay tayeenta iyo dhismaha qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka badda uu ilaalinayo intay dherkeedu yahay khayraadka ku jirana waa la sheegay hada suuragal maahan nin dawladnimo raba inuu difaacan waayo xeebihiisa iyo khayraadkiisa inuu difaacan waayo suuragal maahan هذا هو تبردري بقى شفته ودكتي لكن ولا جنب حي واحد لوسي كنا هي ما مركز نكستو يو قف كستو مني مركز لا جمر يويل يو لا تقول شيء دايم يعني يروي شيء دايم هنا كل سوري عن قبله إن عيدك بدأ وصول اسم الدور. مدن محمد شيخ عبد الرحمن مرسل وزير الدفاع دلك أو قبل مناسبة كهلي أيام بلي أدري دمان عيدك بدأ الدفاع حيبها الصومالية. وأنا إذن هم بليين يا إذا إيو وسسكينا إن سنة دورة لبعض وحنا رجينا يا إن مدان بدك وناكسن ماشان حتى أنكوكو إن الميل كقرح بدن دوما هذا نجيل دوما كقرح بدن رجع هذا هرتي لتاجنا وعيدن كود درجوين كل جديسن له أيضا نوعا عن حين إن سنة كان سنة كيس عندي لها أمريكا الجارسيو إن أنكو عيدنا 1965 ay ahayd markii la aasaasay ciidanka badda iyo ilaalinta xeebaha Soomaaliya maanta oo kale waxaana laga joogaa 53 sano Maxamed Xasan Cali idaacadda telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.